وأنت كفت ما يعني وبرنامج نيروبي وبعض صاحبه تقانا أرمجنا وجودهم بعض لكن إن شاء الله حرجينا يا بيسعدي الله 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 نيروبي ما يمانوسا نيروبي ها نيروبي ما نكر واحد بخويا واي Sharma Boy ayaa afka furtay asagoo siro badan kashifay sidoo kale cadeymo keenay wuxuu sheegay Sharma Boy inuusan Nairobi ku qabsan doonin wax show ah sidoo kale wuxuu sheegay meesha uu uga bedelay Nairobi showgiisa wuxuu yiri Sharma Boy Hargeysa ayaan ku qabanayaa Hargeysa cadey ayaan ku qabsanayaa buu yiri show Sharma Boy oo live kula jiray dhalinyaro saaxiibadiisa taageerayaashiisa kamid ah asagoo waqti la qaadanayay maadaama uu yahay nin aan badan iska weynaysin dhalinyarada ayaa arrimo badan caaw banaanka keenay asagoo sheegay showgii ka dhici lahaa magaalada Nairobi sanadka cusub inuu u bedeshay Hargeysa maadaama uu yiri Nairobi waa liigu dilayaa haatan waxaan rabaa daawadayaal muuqaalka oo aad u dheeraa Sharma Boy inaad la daawataan marka koobaad Sharma Boy you weren't set oh my god I can't believe is this a fake account Miss Adiwai أنا غوصانا بسلام باي وكاقد نسيتها أنا غوصانا ما شاء الله يعني فيك نياكي اكونت فيك ماني ياي فانوس كيساو سيكون روسي شكين شرما شاتاي يا عم والله شي سواحل ما يقول طورته ها نيروبي ما يمانوسا نيروبي ها نيروبي ما انكر واحد بخويا واي اللي وش معك بقى ما هو القصود وينا ما محاسب عيد كدل كرتملا ماشي صوماليا ويريس واي كما وجاي جوا صوماليا يريس واي اسليدان عيد وحكي اللي كرتملا ان شاء الله برنامج زيزي كوجو كانوا كوشا دامون بس أما دانا كوجو ندانيرو أدي زيزي كوجو أروح أسكت وأنت كفت ما يعني وبرنامج نيروبي وبعض صاحبه تقانا أرمجنا وجودهم بعض لكن إن شاء الله حرجينا يا بيسعدي الله 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 هرجيسة حرجينا يا طب ما هرجيسة كوجا ما أنا يدوم مجرو أكلاه هانو naishia وإيش هرجيسة mai bye I'm leaving nilikuwa nataka kuongea na yeye haina shida Sharma hees noo soo qaad next time gabdhaha Zaytuun la dhawayna hees soo qaadid waayay diyaar waa Zaytuun ma dhade ha don't forget diyaar waa inshallah bye inshallah والله شرما هذا والله فطورة مع زيتون يا هذا وطورة وأنا أوجي زيتون مع على ده اللايف زيتون ما بقى تيك توك وجرتها بمرة مسوا ماني sidaad u jeedeen daawadayaal Sharma Boy ayaa sheegay gabi ahaanba inuu isku qabsan doonin magaalada caasimadda ah ee Nairobi wax show ah Sharma Boy ayaa hadalka asagoo sii wata wuxuu yiri anigu Nairobi wax show kuma qabsanayo Hargeysa cadey ayaan ku qabsanayaa buu yiri Sharma Boy showga hase ahaatee wuxuu sidoo kale sheegay in lagu dili rabo Nairobina lagu shirqoolayo sida aan ognahay daawadayaal Sharma Boy waxay ahayd sanadkan cusub ee soo socda haddii Ilaahay nabad uu gaarsiiyo inuu showga qarniga ku dhigto magaalada Nairobi wuxuuna soo dhigay dhammaan barihiisa bulshada asagoo sidoo kale campaign sii bilaabay inuu sii dabaaldego showgiisaas uu dadka la sii wadaago hase ahaatee arrintu waxay fashilantay markii Sharma Boy uu si cad u sheegay inuusan Nairobi ku qabsanayn wax show ah maadaama uu yiri rabo Nairobi in lagu dilo waxaan u wareejisanayaa buu yiri Sharma Boy Hargeysa cadey oo aan ogahay buu yiri in si fiican lagu kala kicinayo showgiga sidoo kalena soo dhaweyn heer caalami ah lagu sameynayo Sharma Boy ayaa arrintan cadeyn caadi u keenay maadaama uu asagoo live ku jira oo la weydiiyay inuu imaan doono Nairobi gabar taageeriisa ayaa tiri Nairobi ayaan kugu sugaynaa waxaan rabnaa sidii madaxweynaha oo kale inaan ku soo dhaweyno Sharma Boy ayaa hadalka qaatay wuxuuna yiri ma imaanayo Nairobi la laba jeer ku celiyay gabadhi ayaa weydiisay sabab wuxuuna sheegay in lagu dil rabo Nairobi aysan Nairobi ahayn meel asha uu isku haleyn karo
sidaas ayuu Sharmaboy sheegay. Hase ahaatee sida aniga ila muuqato ilaa haatan arrintu ma cadda in Sharmaboy uu Hargeysa show ku qabsan doono, sidoo kale showga Nairobi inuu Hargeysa u wareejiyay in kale ilaa haatan ma cadda. Sidoo kale wax cadaynayana Sharmaboy banaanka muuse keenin, walow uu sheegay inuusan ku qabsanayn Nairobi show, bedelka uu Nairobi ku qabsan lahaana uu aadaya Hargeysa sanadka cusubna halka uu ka tumayo. Hase ahaatee ilaa haatan barihiisa bulshada kuma soo qorin wax booraro oo la sameeyeen ilaa haatan maana arag. Kaliya Sharmaboy ayaa afkiisa ka maqlaynaa inuusan ku qaban doonin magaalada Nairobi show. Showga Nairobi ayaa boorarkiisa la diyaariyay, sidoo kale waxaa la sameeyay baraha bulshada ayaa la soo dhigay, dhammaan asxaabta ka agdhow Sharmaboy ayaa meel walba soo dhigay, iyadoo Sharmaboy sidoo kale asaguna meel walba soo dhigay afkiisana uu ka sheegay inuu Nairobi soo socdo. Sidoo kale sidaan wada ognahay Sharmaboy Nairobi waxaa jooga xaaskiisa iyo wiilkiisa yarka ah ee haatan u dhashay ayaa ku sugan magaalada Nairobi. maadaama familkiisa uu Nairobi joogo wuxuu ku khasbanaa sidoo kale Sharmaboy inuu Nairobi imaado. Showga ay u dheertay inuu familkiisa iyo cunugiisa curadka la midoobo, hase ahaatee way suurtagali weyday sida uu asagu sheegay, asagoo ilaa haatan magac dhiban qofku u diiday inuu Nairobi yimaado. Sidoo kale asagoo magac dhiban Sharmaboy in group ama dad ay u diideen ama dil loogu hanjabay inuu Nairobi haduu yimaado. Hase ahaatee wuxuu yiri oo kaliya Nairobi ma imaanayo, mana imaan kara Nairobi. sidoo kale wuxuu yiri Nairobi meel isku haleyn kara ma aha, bedelka Nairobi aadi lahaana waxaan aadayaa Hargeysa. waxaa xaqiiqo ah Hargeysa haduu tago Sharmaboy in loo kala kicinayo, sidoo kale hoyga fanka oo taageero aad iyo aad u badan ku leeyahay in sidii madaxweynaha kale loogu soo dhaweynayo, walow xargu iska jiro xukuumadda Musabbixi. hase ahaatee Sharmaboy oo nin dhalinyaro ah meeshuu tagan iska fahma, dhalinyarada ku dhex jira ayaa la filayaa inuu fahmi doono haduu halka tago si weyn loogu soo dhaweyn doono, walow uu la og yahay inuu taageerayaal aad u badan oo ugu horeeyo Qamar Suugaan uu ku leeyahay halkaas aadna loogu kala kicin doono. sidoo kale Nairobi ayaa aad loo sugayay, dad dhalinyarada ayaana aad ugu helanayd, waxaana loo diyaarinayay soo dhaweyn aan inaba caadi ahayn. waxaa la rabay Nairobi inuu yimaado, markuu Nairobi yimaadana show loo qabto dhalinyarada iyo asxaabta iyo taageerihiisa in badan kala socday baraha bulshadana si live ay isku hor fariistaan, ayagoo si live su'aalo isku weydiin lahaa, showgiisana uga soo qaybgabi lahaa. sidoo kale dadka u baahan inay la kulmaan ama rajayn jiray kuna riyoon jiray in hal mar arkaan Sharmaboy ay u suurtagal lahayd inay wada kulmaan oo waqti wada qaataan. hase ahaatee waxaa xaqiiqo ah haduu Hargeysa tago iyo haduu Nairobi tago Sharmaboy inuu shacbiyad ku leeyahay, sidoo kalena aan la xaqiri karin shacbiyada Sharmaboy, haatan aan indhaha la iska indhasaabi karin. hase ahaatee Sharmaboy ayaan ilaa haatan waxba u sababayn aan ka ahayn in lagu dili rabo Nairobi. daawade adi maxay kula tahay Sharmaboy inuu Nairobi yimaado? may kula tahay bis waxay kula tahay Sharmaboy hoyga fanka inuu aado, inuu Hargeysa ka dagan bay kula tahay? Raayigaaga aad ayuu muhiim noogu yahay. daawadayaal waad nala wadaagi kartaa raayigaaga. anigu waxaan ku talin lahaa Sharmaboy meeshuu tagaba shacabkiisu inuu usoo baxo, maadaama uu yahay dhalinyaro ah, dhalinyarada haatan joogtana uu yahay kuwa ugu firfircoon, kuwa ugu taageeraha badanna uu yahay, nin la hor istaagi karana uusan ahayn. jamaahiir buu wataa Sharmaboy, haddaad hor istaagtidna sidii daadka ayuu kuugu harqanayaan. daawadayaal fiidiyowgan waxay intaas ugu imaan doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.